مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقاء وغدا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaan kusoo dhex jirnay darsigeennii siirada mukhtasaru siirati rasuuli sala allahu calayhi wasalam liibni sayidi innaas raximahu llahu tacaala raxmatan waasica. waxaanu kusoo dhex jirnay ciwaanka ah inagoo ka waramayna nabiga sala allahu calayhi wasalam xaasaskii uu soo guursaday iyo siday u kala horeeyeen baynu ku jirnay. waxaanu kasoo warraynay nabiga sala allahu calayhi wasalam haweeneydii ugu horreysay ee uu guursaday inay khadiijo ahayd. waxaanu guursaday iyadoo garoob ah ama carmal ah. magaalada maka ayaanu ku guursaday. caruurta uu nabigu sala allahu calayhi wasalam uu dhalay siday u dhan yihiin iyada ayaa u dhashay marka laga yimaado ibraahim oo ay u dhashay maariyat alqibdiya. gabadhii labada uu guursaday nabigu sala allahu calayhi wasalam sawda bintu zamca ayay ahayd. markii ay weynaatayna ee uu nabigu sala allahu calayhi wasalam caaisho uu guursadayna habeenkii ay u lahayd waxay u hadiyeysay caaisha iyadoo ka baqaysa in nabigu sala allahu calayhi wasalam uu furo doonaysana inay ka mid noqoto ummahaatulmuuminiina fi dunya waalaakhira, labada daaroodba in ummahaatulmuuminiin ay ku jirto iyadoo doonaysa bay taasi waxa weye ay u sameyso oo ay ilaashanaysay waxa weye booskeeda ay halkaasi ku leedahay. gabadha saddexaad oo nabigu sala allahu calayhi wasalam uu guursaday caaisha ayay ahayd. waana gabadha keliya iyada oo bikra ah ama inan ah uu nabigu sala allahu calayhi wasalam uu guursaday. iyada dabadeedna inan bikra ah horteed iyo dabadeed mana guursan nabigu sala allahu calayhi wasalam. caaisha waa ina abubakrin sidiiq. maka markay ay joogeen nabiga sala allahu alay wasalam iyo caaisha iyo abubakarba baa nabiga sala allahu calayhi wasalam la siiyey. waxaa ku xigtay intaa dabeed xafsa oo ina cumar ibnu khadaab ah. uma ummu xabiiba ayaa ku xigtay oo magaceeda la ohan jiray ramla binta abi sufyaan oo tasawajahaa nabigu sala allahu calayhi wasalam uu guursaday wahiya fii bilaadi alxabashati, dhulka xabasho iyada oo joogta. wajalabaha lilmadiinati kabacdina nabigu sala allahu calayhi wasalam madiine ayuu keenay. uma ummu salamata waxaa ku xigtay ummu salama oo magaceeda la odhan jiray hinda bintu abi umaya buu nabigu sala allahu calayhi wasalam uu guursaday. waa hinda bintu abi umaya ibn lmugiira. uma zaynab bintu jaxsh wuxuu nabigu sala allahu calayhi wasalam uu guursaday zaynab bintu jaxsh wahiya ibnatu camatihi waana inantii eedadii ay dhashay umaymata bintu cabdilmutalib. islaanta eedadii ah baa nabiga sala allahu calayhi wasalam inantaasi dhashay markaa inaadeertii buu nabigu sala allahu calayhi wasalam uu guursaday. uma juwayriye ayaa ku xigtay. juwayriya bint alxaaris ibnu caamir baa nabigu sala allahu alay wasalam iyana uu guursaday. uma safiya bintu xuyay bin akhtab annadariya baa nabigu sala allahu calayhi wasalam uu guursaday min waladi nabiy llaahi haaruun akhi muusa calaa nabiyina wa calayhima assalaatu wassalaam. safiya bintu xuyay nasabkeedu waxa uu galaa nabiyullaahi haaruun. haaruunna wuxuu ahaa nebi muuse walaalkii ayuu ahaa calayhima wacalaa nabiyina afdalu salaati wa atamu tasliim. uma maymuunata bintu lxaaris buu nabigu sala allahu calayhi wasalam guursaday. khaalatu ibnu cabaas waa ibnu cabaas habaryartii wa khaalid ibnu lwaliida radia allahu canhuma. khaalid ibnu waliid iyo cabdullaahi ibnu cabaas baa habaryartood weeye baa nabigu sala allahu calayhi wasalam uu guursaday. wa haadihi aakhiru tani waa tii ugu dambaysaye tasawaja min annisaa-i uu nabigu sala allahu alayhi wasalam uu dumarka uu ka guursaday. iyada ayaa ugu dambeysay maymuuna. kabacdi sheikhu wuxuu doonayay inuu xog fiican oo qurux badan inuu nasiyaa buu doonaya. wuxuu yihi amaa khadiijatu khadiija miya fatuwufiyat fii xayaatihi bimakata. nabigu sala allahu alayhi wasalam isagoo oo nool baa ay dhimatay khadiija walam yatasawaj qatun calayha xataa maatat.
ilaahay khadiija ka dhimanaysayna nabigu sallallahu alayhi wasallam lama guursanin cid gabadha uu la guursaday nabigu ma jirin wa amma tis'u allati ba'daha sagaalka dumar ee ka dambeeyay khadiija fahunna allawati wa kuwa maata canhunna nabigu sallallahu alayhi wasallam uu ka dhintay sagaalkan kalena iyagoo nool buu nabigu ka dhintay laakiin gabadha kaliya nabigu sallallahu alayhi wasallam isagoo nool dhimatay khadiija ayay wa awwaluhunna luhuqan bihi gabadhii ugu horeysay ee nabiga soo haleeshay yacni kasoo daba dhimatay nabiga sallallahu alayhi wasallam Zaynab bintu Jahsh bay ahayd wa akhiruhunna waxa ugu dambeysay xagga geerida dumarka nabiga sallallahu alayhi wasallam Hindun baa ugu dambeysay wa qiila maymunana waa la yiri labada riwaayado way soo jiraan culimada siyar qaar waxay leeyihiin dumarka nabiga sallallahu alayhi wasallam gabadhii ugu dhimashay dambeysay Hind ayay ahayd qaarkoodna waxa la maymuna ayay ahayd وتزوج زينب بنت خزيمة النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة يقرسدي ولو لقبي تري أم المساكين فبقيت عنده نحو شهرين فماتت في حياته النبي صلى الله عليه وسلم لو بلوده كلي لتشوكتي وانا دمتي رضي الله تعالى عنها وكان صداق نسائه دمان مهرك النبي صلى الله عليه وسلم ودمر كيس أوسيه كلهن دمانتود 500 درهم 500 درهم بيهيد وحنا الله هذا waxay u dhigantaa waxa weeye dahab ahaan 12 qiyadood oo dahab u dhiganta macna 12 qiyadood ma filayn inay oran jireen culimada siyar waxay oran jireen 12 qiyadood waa nash yani 12 qiyadood iyo bad bay u dhigantaa illa ummu habiba nabiga sallallahu alayhi wasallam kamu bixin wax mehera faastaqaha anhu waxa meherkeeda ka bixiyay an-najaashiyu 400 درهم 400 درهم buu ka bixiyay adu riwaayadku waxa weeye taariikhda ku soo arooray way kala duwan yihiin taaw sheekhu maray weenu marayna maadaama darsiga aynu soo koobnayna sharax dheeraad ah ayna raacin waxaynu ku gaabsananaa inta kitaabka noogu qoran si ardayda ibtidaayiga ee bilowga aan wax khalkhal ugu keenin siisaynu u qaadanaynaa كتابك كان كحيجا إن شاء الله تعالى سوى عن شرح دونا كان بلوين وكرينا وصفية صفينا أصدقها نفسها يعني استاقيد يمهر كيد واحد نفتي ده لأنها صبيت ولا سوق فاشي كبعدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو حريي ونقول سدي مهر كيدنا وحو كدغي حرين تايو كدغي درس جسواكي حلينا باغدي أينو راعين درس عصب ذكر أولاده عليه الصلاة والسلام حكى إنه حلقة هذا يا باب وحيا مفصل وحيا يضل لقى ورمي النبي صلى الله عليه وسلم أوبد كيسي وحكم ذا القاسم وبه كان يكنى وأنا كوحوي النبي صلى الله عليه وسلم كن يد اللي قسمه أو القاسم النبي صلى الله عليه وسلم اللي نجري وعبد الله إلمي صلى الله عليه عبد الله بلو نجري ويسمى الطيب والطاهر وحان اللهم قعبا الطيب يا طاهر بولا هذا وقيل الطيب ولد آخر سير كقاركود وحيلين أهل السير كقاركود وحيلين طيب وحوها الملا المكلو والنبي يقول دليه طيب يا عبد الله يسمين ما هين هبلهنا مركان رجي صدق حصل اسكوهيا انت اللي وجه قاسم يا عبد الله والله هو لكن طيب بعض أهل السير إليهين ويل صدحاد والنبي صلى الله عليه وسلم ودليه وزينب وهبلها وحيها زينب يو الرقية يو فاطمة يو إبراهيم وأم كلثوم وماتوا كلهم في حياته دمان تود وحي دنتين النبي صلى الله عليه وسلم يسقوا النور دمان عرورتيسو يسقوا النور النبي صلى الله عليه وسلم بدي دنتين إلا فاطمة موياني ماتت بعده ب6 أشهر اللي بلودو كلي كدم النبي صلى الله عليه وسلم حاجة جيدة وزوجها نينك غورسدينا وحوها علي بن أبي طالب بوها ولدت له الحسن والحسين وحود الشيء حسن يا حسين يو محسن بيقول الشيء أو محسن فأما محسن فمات رضيعا المها يروح يسوق انتهي يسوق الناس كشغيا وأما الحسن والحسين فمنهما جميع الشرفاء يسقى أي كسو جيدان تتكا أهل الشرف قرن أشراف تقول هذا ما ركت يسقى كسو جيدان وأما رقية وأم كلثوم فماتتا عند عثمان رقية يوم كلثوم لوضعها بلودنا النبي صلى الله عليه وسلم ودلي عثمان بن عفان باقوية مربى مدبا كلمتين واحدة بعد واحدة مربى مدبا كلمتين ولذلك سمي ذا النورين
وسوت الله ما جعبه النورين الله ما جعبه إنه وحوي لبضاس وحوي هبلات اشترفت بدل ونبي يقول عليه إنه كورس ده ومر بمدة كلمته ولفاطمة أيضا فاطمة وحوسنا هذه مع علي وحيود الشيء 3 بنات 6 حفلات ماتت واحدة قبل البلوغ صدح ذا حفلات مد بعد متى انت أنا قان قارين وعاشتنا تاني لبنا وين ولادين وكان لهما أولاد عرنا ويدلين هل كاس بين كدين درسي نعاوة يسوق كوكوبان لبا درسي سدا وجد ودرسي كويتوماد يلا بيتهم نسان شعلهاي اللهم صل على محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك